dheer oo 30 iyo dhowr daqiiqo ah oo isla su'aashaana kale ka jawaabaysa balse muuqaalkan oo ka kooban ka gaaban kana daqiiqada yar waxaan doonayaa sidii aan ka hor uga sheekeeyay si ka fudud kana macquulsan inaan kugu soo koobo waxa ay tahay forex trading waxa laga yaabaa inaad marar badan isweydiinayso adigoo fakaraya oo dhahaysid waa maxay forex maybe qof familkaaga baa ka shaqeysta maybe qof asxaabtiin baa ka shaqeysta maybe qoyskiina qof kamid ah lacag ku khasaaray maybe dhalinyaro waxa aragtay internetka social media soo gelinaysa forex baan ku jirnaa su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay waa maxay forex inta aynu wax kale ka fakirin aynu jiradul istaagno kelmadda forex ma aha erey aad iskiis uga soo helashid dictionary-ga Ingiriiska hase ahaatee waa laba kelmadood oo la soo gaabiyay oo ka kala yimi kelmadaha kala ah foreign iyo exchange oo macnaheedu yahay kala bedelka lacagaha qalaad ama kala bedelka lacagaha wadamada kala duwan ay leeyihiin marka ereyga forex labada kelmadood ayaa laga keenay af Soomaali ahaan macnaha ugu dhow ee lagu soo koobi karo wuxuu noqonayaa sarifka lacagaha qalaad وهجاج هذا هدي أد فهمت فوركس وحيد هاي سؤال لبعض وما حاجة سوق اللي كرت وحيد هاي دت كالسوق عن كالشقية محي قبطان مركز شقضو ذو كتشران سؤال أنا نو كتجوابنا دت كالسوق عن كالشقية وحي كلا إيبيان أما سو إبسدان لعجها كلا دوان أي ليهين دلالك كلا دوان صالحانو كلا لعجت إنجليز القيمة هذا مركو كرتشوجو سل بانكو سمينا وانسكا إيبنا لعجت إنجليز مركو قيمة هذا هوست شوجنا باي بانكو سمينا وانسو إيبسنا وسيدي أديكو جوري إيبسنا يا وكلا جوري جاس مركو قيمة هيسو سرية أو السوق ليها ولا سكا إيبيا مركو قيمة هيسو هوسية أو دول كيالنا ولا سو إيبسدا بس كذا يا كفهم دونتا باي يسال واحد عنك وضع هذا قرما أيو سوقاني فرني هاي أود أهانا إنتي أيو لأجي هاي سوقاني وحفرني هاي أفري لباتنك ساعدود الشنطة معلومات أسبوعة مرك لقى ريب لبضة معلومات السبت دي أحدها سيدو كلا سوقاني وسوق أود أهان مالنكي لسنحمريه لعك بدن لح تريليون أو دولار dadka suuqan ku jira iyo kooxaha iyo waaxaha kala duwan ee suuqan ka shaqeysta maalin walba waxay isdhex mariyaan lacag qiyaastii gaaraysa 6.6 trilyan oo dollar oo abriil 2019 oo halkaas gaaray waa hagaag hadaba su'aasha taa ku xigto laga yaabo isweydiinis waxa weeye dadkan 6.6 trilyan isdhex mariyay iyo kooxahan kala duwan maxay yihiin kooxda koowaad ugu muhiimsan ee suuqan qaybta ka ah waxa kamid ah dawladaha iyo bangiyadooda lacag walba oo warqada oo adduunka jirta waxa daabacda dawlad walbana waxa u daabaca bangigeeda dhexe marka suuqan waxa qayb ka ah bangiyada dhexe ee dawladaha iyo dawladoodiyo iswata okay kooxda labaad ee suuqan qaybta ka ah waa bangiyada khaaska loo leeyahay tusaalahaan aniga adigu iminka waxaan wadanaa mastercard iyo visa card ay bixiyeen bangiyo khaas loo leeyahay mastercard iyo visa cardkaas waxa ku qoran nambaro sidoo kale waxa lagu yiraahdaa nambaradaas waxbay ku goyn karaan dukaanka tagtaa meel baa marsataa hawl baa ku qabsataa lacag kaash isma aragtaan kaashkaagi bangiga ayaa haysta muxuu ku falayaa miska daawanaya no u shaqeynaya suuqa sarifka lacagaha qalaad ayuu kaashkaagi qayb ka yahay adiguna kuma shaqeysanay sida bangiga ayaa ku shaqeysanaya waa hagaag kuwa marka laga yimaado suuqan waxa kale oo qayb ka ah ganacsato iyo sharikaadka waaweyn saano kale sharikaadka sida Amazon iyo Facebook iyo Twitter iyo Microsoft iyo Apple iyo lacag waliya ay haystaan lacagahooda meelaha ay ku maalgashtaan waxa kamid ah forex trading kuwa marka laga yimaado sidoo kale waxa suuqan qayb ka ah hanti maamulayaal iyo maalqabeeno hanti maamulayaashu waa dad iyo xirfadii forex ka bartay oo dadka hantida haysta hantidooda intay ka soo qaadaan ugu shaqeynaya hasaate 2006 wixii ka dambeeyay waxa suuqan fursad u helay aniga iyo adiga oo kale oo shicib ah inaan suuqan ka shaqeysano kadib markii aaladda internetka iyo technology-ga casriga ah ay inoo fududeysay iyadana gadaal ayaad ka fahmi doontaa وهجاك حدبا سيدي أيام سوقا فائدة أوجا سمينا واحد مقاشين هبل بسوق العكس سمية أم هبلايا العكس سميسا يا العكس سيا مع ميش سواقوه حاجة أي فائدة كتير هذا كد سوق المركز اللي قشق السنة يو لعجها كلا دوان الدلالك كلا دوان إليهين لما أنا لبا أحيا لسكر راحية صالحنا كمركز عرفتنا حلا السرف سميسيد وإن لبدو لدود labadooda lacagod aad hal mar kala sarftid tusaale ahaan iminka waxa ku muuqda lacagta euro iyo lacagta USD si aad faa'iido u sameeysid waxa leedahay halkii euro intee USD ayuu maanta u dhigmaa ama halkii USD intee euro ayuu u dhigmaa tusaale ahaan hadaan halkii euro maanta wuxuu u dhigmaa $1 iyo 50 cent
haddaad tiraahdo lacagtan baan maal gashanaya oo jeebkayga $1 oo aan kala soo baxay ayaan sarifkan ku galaya inta jeer oo uu isbedelo sarifkaasi oo lagugu dhuftay lacagtii adigu aad maal gashatay ayaynu faa'iido ka sameynaa xasuusnow sida hore kugu soo sheegay buy iyo sell ayuu suuqu leeyahay oo haddii aad tiraahdo euro iyo USD lacagta wax la yiraahdo base currency-ga ah waa lacagta adigu ama soo gadanaysid ama iska gadasid quote currency-guna waa lacagta kale oo aad ku bedelaysid marka haddii aad tirahdid 1 euro wuxuu u dhigmaa waxa la yiraahdo $1.50 haddii aad iska iibinaysid macnaheedu wuxuu ka dhigan yahay in euradu meel sare ay joogto hoos qiimaheedu dhacaya sidaas oo kale bedelka labada lacagood meeshii aad ka gadatay iyo meesha aad kaga baxaysid inta u dhaxaysa oo lagu dhuftay lacagtii aad ku soo gashay ayaad waxa la yiraahdo faa'iideysa waa hagaag haddaba halkee ayuu kala bedelku ka dhacaya waxaan ka soo sheekeynay forex waxay tahay waxaan ka soo sheekeynay sida uu shaqeyso waxa laga shaqeeyo dadka ka shaqeeya markii ka shaqeynayaan waxa ay qabtaan haddaba xagee ayay shaqadii ka dhacaysaa meena Europe iyo Mareykanka aadaa saan euro iyo USD u kala bedelo maya haddaba shaqada oo dhan waxay ka dhacaysaa internetka dhexdiisa oo shaqadii waxa fududeeyay technology adiga oo shacab ah ayaa waxaad heshiis la galaysaa dulaal aad kala kulmaysid internetka dhexdiisa oo ma u baahnid inaad Mareykanka aadid ama Ingiriiska aadid waxa soo baxay waxa dhaho dulaalku muxuu sameeyaa marka dulaalku wuxuu haystaa lacagihii kala duwanaa ee dalalka oo dhan talahaan oo kale waxa kamid ah lacagta USD lacagta Europe lacagta Ingiriiska ti Switzerland ti Australia ti Canada ti New Zealand ti Japanese yen lacagahaas oo dhan adigu inta wadamadooda kala aadid dadkii uma kala sarrifi kartid xagee ka helaysaa marka si aan lacagaha u heshid waxaan ka soo sheekeynay inuu jiro maxay waxaan ka soo sheekeynay inuu jiro wax la yiraahdo dulaal haddaba dulaalka ayaa wuxuu ku sameynayaa adiga iyo dulaalka ayaa heshiis galaya deetana dulaalka ayaa waxa ka furanaysaa koonto ayaad ka furanaysaa salaam kala iminka dulaal waxaan nagu isticmaalaa la yiraahdo FX Primes ayaan koonto ka furanaya magacayga baasaboorkayga xogtayda dhan baan gelinaya waxaan leeyahay anigu New Zealand iyo China iyo Japan iyo Ingiriiska ma aadi karo dulaalow adiga ayaa haysta lacagtii adiga dhexdaada ayaan anigu ka shaqeysanaya oo dulaalku muxuu qabtaa dulaalku wuxuu sameeyay lacagihii dawladahan oo dhan ayuu jumla ahaan u soo gatay isagu deetana dhexdiisa ayay ku jiraan koonto markaan ka furto lacagihii isaga dhexdiisa ku jiray ayaan aniga iyo 100,000 oo qof oo sideedoo kale shacab ah tafaariiq ahaan lacagaha dulaalka dhex yaala u kala badbedelayna oo dulaalku wuxuu ku siinayaa koonto sidaan u eego kale deetana koontadii aad dulaalka ka furatay ayaa waxa ku shubanaysaa aan dhahno $100 oo kale $100 ayaa waxa rabtaa inaad sarif ku samaysid maxaan ku soo sheegay in lacagu laba isku raacaan salaano kale lacagta euro ba waxaad u bedelaysaa lacagta USD xagee euro iyo USD ku arkaysaa wadamadoodii baa aadaysaa maya heshiiskii in online ka ahaa ee aad gashay ama aad dulaalka la sameynaysay ayaa dulaalka dhexdiisa waxa ku jira lacagihii oo dhan deetana labadii aad rabtid inaad lamaan ahaan iskugu bedeshidba dulaalka dhexdiisa ayaad ka dooranaysaa haddaan iminka doorto lacagta Europe oo lagu bedelo lacagta Japanese yen haddii aan doorto waxa dhacaya waxay tahay in dulaalka dhexdiisa ay lacagihii yaalaan oo isagu jumla ahaan u soo gatay aniguna aan tafaariiq ahaan u maal gashanayo kadib khidmada yar ayuu dulaalku ku saarsanaya haddaba halkee wax ka bilaaba forex-ka lagu sheegayo macluumaadkeedu waa intaas haddii marka aad doonaysid inaad nuxur badan heshid haddii aad doonaysid inaad suuqan ka shaqaysatid xagee ayaad wax ka bilaabaysaa number 1 waxa ugu horeeya laga doonayo inaad fahamtid forex ma ahan ganacsi ee waa xirfad maxaan ka wadaa halkan ganacsi waxa la dhahaa haddaan anigu iminka intaan dukaan furto aan saliid iyo shaambo iyo cunto iyo wax soo dhigo qof walba qaban kara shaqadaas laakiin xirfad waxa la dhahaa iminka markaad noqonaysid timajare oo kale timajaristu waa xirfad la barto waa inaad taqaanid sida maqaska loo sameeyo iyo dhan waa inaad xirfadii baratid haddaad doonaysid inaad ciyaartoy noqotid waa inaad taqaanid sida kubadda loo ciyaarayo balse ganacsi maxaa noqon karo kale haddii aan waxa la yiraahdo doonayna inaan geela kala gado oo aan baadiyaha aado geel ka soo kaxeeyo magaalada imaado saylada keeno kala iibiyo waa ganacsi qof walba gari kara marka xirfad iyo ganacsi farqiga u dhaxeeya waa intaas haddaba xirfadda baro si ay iyadoo hadhow ganacsi kuugu noqoto raadi marka macluumaad kugu filan haddii aad doonaysid inaad forex baratid ama doonaysid inaad xirfadan wax badan ka ogaatid raadi macluumaad ama information kugu filan sanadkan ama casrigan aynu joogno waa casrigii macluumaadka waa waqtigii informationka qofka uu ka macluumaad badan yahay uu ka horumarsan yahay nolosha isku day marka inaad macluumaad kugu filan raadisid haddaba xirfad walba oo la barto waxay ka doonaysaa 3 shay oo muhiim ah midka koowaad waxa weeye tababar
boqolaal saacadood 50 saacadood 80 saacadood inaad tababar joogto ah samaysid si aad forex-ka guuliga gaartid lambar 2 waxay ka doonaysaa toosin si aad toosin u heshid waxa ku khasbanta inaad heshid macallin ama mentor ama koox isku xiran oo ku caawisa oo ku toosisa adiga inta markaa heshidna waxa u baahan tahay tusaaleyn in lagu dhaho adigu qaba marka way lagu tusaaleeyo waa wixii caadi u guda gashid hadaba si aad marka intaas u heshid si aad sawir buuxa suuqan uga heshid isku day inaad akhrisid book aan anigu qoray oo magaciisa la yiraahdo forex somali oo ah book meel kala duwan oo Soomaaliya lagu soo bandhigay ilaa xataa gaaray madaxtooyada Soomaaliya iyo madaxda dalka ugu sareysa magaalooyinka waaweyn ee dhulka Soomaalida dhan lagu soo bandhigay sida meesha la yiraahdo Muqdisho Hargeysa Jigjiga kulli lagu soo bandhigay Nairobi lagu soo bandhigay Kampala lagu soo bandhigay Garowe lagu soo bandhigay Soomaalida oo dhan galay kuma dhahayo marka lacag ka bixi buugaan balse isagoo free ah ayaad waxaad ka heli kartaa website-keena hay'ad academy la yiraahdo adoon forex waxba ku biirin adigoo aan waxba kala qaban adigoon $1 iibin isku day horta inaad buugaan la degtid si free ah kadibna akhrisid si aad macluumaad kugu filan u heshid forex-na u fahamtid marka buuga akhrisid inta yartaa hadda aan ku soo sheegana aad fahamtid kadib adigu go'aanso in forex ay tahay wax adiga lagu talagalay ama waxaan adiga lagu talagalin السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.